tababarkan way ka faa'iideysanayeen ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahayd shuruucda dirawalnimada iyo nabadgelyada wadooyinka ee ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maayirka caasimadda Hargeysa taliyaha ciidanka dabdamiska iyo madax dhaqameed ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili taliyaha ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu ka waramay faa'iidada uu tababarkani u leeyahay ciidanka dabdamiska halkan waa dabdamis iyo goob waxbarasho waa fire brigade iyo training center duruustii hore inuu qaadanayna ahayd duruusta dabdamiska duruusta IT-ga duruusta maxaa la yiraahdaa gargaarka koowaad duruustii electriga ama leydka maxaa la yiraahdaa duruustii ahaa sharciga iyo gaadaka ciyaarkii maxaa la yiraahdaa ciidamada waxaynu ku soo biirinay inaanu barano shuruucdii gaadiidka wadistiisa iyo in xirfadeeni dirawalnimo in kor u qaadno marka waa ilaahay mahadii maalin walba waxbaynu sii kordhin doonaa waxa inoo maqanisna building construction safety waxa la yiraahdo oo injineerada noo wada jooga cilmiga soo sheegay oo dhan waxa bara niman injineera oo ciidanka dabdamiska kamid ah wasiir iyo maayir ciidanka dabdamiska idinka hogaaminaya waxaan ku bilownay 30 inan baan ku bilownay markii ugu horeysay maantana waxaanu maraynaa 317 waa gobolada intii imika aanu sameynay waxaan maanta noo daahfuraynaa sharcigii wadamarista iyo awoodii dirawalnimo in halka ka sii qaadno Fuad oo ah macalinka bixinaya tababarkan ayaa isaguna ka waramay shuruucda dirawalnimada iyo nabadgelyada wadooyinka iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka dirawalka waxa kaliya oo looga dan leeyahay caalamka cid ku soo dhalatay oo waxbarasho iyadoo wax taqaana ama gaadidooda taqaana ama diyaarada ka haysa ma jirto halkan dabdamisku imaka waxaan arkaynaa in ay meesha madasha quruxda badan iyo xerada aynu dhex fadhino iyo askarta dhex taala iyo gaadiidka dhex yaala marka la eego ay laga maarmaan tahay inay maalintii 10 jeer gurmadaan laga yaabo mararka qaarkood waxay mareen ay wadooyin tahay shuruuc adag baa laga soo dejiyay haddana ciidanka dabdamiska iyo gaadiidka gurmadku waxay leeyihiin shuruuc gaar ah in la ixtiraamo ay tahay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay qaranka ku leeyihiin ciidanka dabdamiska kun ahaantii maalinba inay waxdiin sii kordhaan maalinba tababardiin sii kordho waa arrin muhiima annagana farxad bay noo tahay waxa weeye ciidankii aanu qornay oo muxuu ahaa maalinba maalinta ka sii dambaysa aqoontiisu sii kordhaya waxay noo tahay farxad aad weyn insha Allah ta'ala labadii muxuu ahaa saldhiga kale inoo soo kordhayay midna dhismihiisa waa dhamaad midna imka la isla gartay in halkii Maxamuud Axmed Cali dhinaciisa wasaaradda maaliyadda dhinaceegii laga dhiso wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tababarkaasi furay ayaa ciidanka dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan tababarkani ku saabsan shuruucda dirawalnimada iyo nabadgelyada wadooyinka ciidanka dabdamiska ana waxaan aqoonsanahay inay laf dhabar ka yihiin ciidanka dabdamiska waayo qolooyin waxay eegtaan inta badan qolba shaqay leedahay idinku dad iyo maal iyo intaba badbaadadooda diyaaruti sidaad sheegteenna sida uu taliyaha ama tababaraha casharadan idin dhigi doona oo sheegayna dhaqaajintu waa ka kow tababarka dabdamiska halka gaarigu markuu ka baxayo halka uu marayo iyo qaabku u soconayo wuxuu adeegsanayay wax ciyaar ma ahan filaya waayo gaadiidkii mar kale marayay suuqa tamashleynaya xargoonaya si uu socdaan baynu arkayna taa wada marista ama muxuu ahaa gurmadka sida uu loo geliyo waa ciidan dagaal gelaya oo hawl gelinayo way sidoo u dhaqaaqayo ayaa koow ka ah dagaalka uu geliyo hadaan u diyaar garoobin inuu dhaqaaqo oo uu taayiradiisa iyo shidaalkiisa iyo dirawalkiisa oo tuutii wixii xidhan aanay heegan ahayn waxba dhaqaaq maayaan halkaas Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.